بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي ومحدث كله سبحانه وتعالى شركنا جرائد وحو كسابسن yahay dagaalkii saaka aroortii ka bilowday aaga magaalada Ras Kamboni oo waqti dheer qaatay dagaalkaas oo in muddo ah socday wuxuu ku soo gabagaboobay ugu dambeyntii gobol dhici ayay magaalada Ras Kamboni si toos ah oo ay gacanta dawladda Jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan ciidamada geesiyaasha ee dawladda Jubbaland ee ku jira furimaha kuwii maanta ka qayb qaatay dagaalka iyo kuwii kale khawaarijtu ay ku soo weerartay Buula Xaji iyaguna waan u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan runtii aan halkan ka sheego dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay dagaal xaq darro ah buu ahaa waana ka xunnahay runtii sida ay wax u dhaceen ma ahayn waxaan anagu raali ka nahay waana ka dignay laakiin dawladda federaalka digniintaas way iska dhaga tirtay runtii waxaan aad uga xunnahay ciidanka Haramcad iyo ciidamada Gorgor in ay dawladdu ay u adeegsatay si khaldan ciidamadii caalamka ku soo caawiyay dalkeena in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed oo dadka lagu laayo oo deegaanada la geeyo runtii waana ka xunahay ciidamadaas dagaalkii maanta dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan Ilaahay u rajaynayaa inuu u boogadhayo runtii ciidamo badan ayaa is soo dhiibay oo gacanteena ku jira ciidankaas dawladda Jubbaland is soo dhiibay dalkoodii bay joogan si nabadgelyo ah ayay saacada hadda aan ka hadlayay ku sugan yihiin ma jiro cid wax loo dhimayo ma jiro cid si gaar ah loo beegsanayo mana jiri doonto cid wax gaar ah loo dhimi doono biidnillaahi kariim ciidamada waajibaad bay qabaan in ciidankaas sida ugu quruxda badan loola dhaqmo waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ciidankaas inaanan la bahdili doonin inaan la dili doonin inaan si xun loola dhaqmi doonin ayaan sheegaynaa waan u mahad celinayaa ciidanka Jubbaland sida sharafta iyo karaamada leh oo wiilasha walaaladood ee la soo khalday ee siyaasadda lagu soo marin habaabiyay ee wala dhaqmeen maanta waxaan haynaa dhaawac aan ka soo qaadnay goobaha dagaalka askarta dagaalka gashay khaladka male askari baan ahay askari waajibaadka la siiyo ee saxda ah ayuu qaataa laakiin ciidankaas mas'uuliyadiisa waxa iska la saraakiishi soo marin habaabisay iyo madaxdii khaladkaas gashay ayaa iska le askari ma xumaada madaxdiisa xumaata madax xun ayaa adeegsatay anagu askariga la soo qabtay cidii si gaar ah dambi u gashay ninka guri galay ee bilaqaystay ninka naakufsaday ninka xoolo dadweyne dhacay dambiga uu galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dawladda kula xisaabtamaysa laakiin waxaan si cad u cadeynayaa ciidamadaas dagaalka siyaasadda galay ee dagaalka siyaasadaysan ee dawladda federaalka Soomaaliya u adeegsatay in aan maxay ahaydey dagaalka ay galeen dartii aan dawladda Jubbaland